idan qofka muslimka ah ama dadka muslimiintii naadiga ugu weyn ay leeyihiin waa masaajid baa la yidhi shanta salaadood ku kulma. masaajidkaa la yidhi xaafadda xayiga dadka wada degani ciidka jumcada mid qura isugu yimaado. waxaa la yidhi magaalada dadka wada degani haddana ciidda bannaan qura isugu yimaadaan, meel laysku barto, aqoon laysku weydaarsado, diin laysugu sheego. qofka muslimkaa majliskiisa markuu guriga ka yimaado uu yimaadaa waa masaajidda. masaajiduna dee dhulka ilaahay wuxuu tilmaamayaa axabu buqaaci illaahi ila allahi inay tahay siduu nebigu sheegay. dhulka ilaahay meesha loogu jeceliyey ee ugu daahirsan ee ugu nadiifsan, meesha uu nuurku ka baxo ayay tahy. waa ka ilaahay qur-aan ku tilmaamaya fii buyuutin aadina allahu an turfaca wayudkara fiiha smu yusabixu lahu fiiha bilguduwi walasaali rijaal. ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa iftiinka iyo hanuunka iyo waxaasoo dham inuu yaallo guryahaasi. kuwaasaana ilaahay farayaa in kor la yeelo oo ama dhismo ha noqoto ama tacmiirta kaleba ha noqotee. halkaas baa ilaahay rag yaqaanaa ku xusanbaa ayaa rabbi tilmaamaya subxaana wa tacaala. aayad kalena waa ka alla leh inamaa yacmuru waxa camira. inta badan camiraadda mala dadku wuxunbay u arkaan dhismaha kane. camiraadda dhabtahay waa inaad cibaado iyo ictikaaf iyo wardi iyo qur'aan akhris iyo cilmi barasho ku camirtid. masaajidda waxaa camira baa la yidhi kuwa alle iyo maalinta qiyaamo rumaysan. inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana biاllahi walyawmi alaakhir waaqaama asalaata waaata azakaata walam yakhsha ila allah facasaa ulaa'ika an yakunuu min almuhtadiin. ilahay waa ku tilmaamaya fiihi rijaalun yuxibuuna an yatataharuu wallahu yuxibu almutahiriin. ilahay waxaa tilmaamaya masaajidda inay rag joogaan ama dad jecel inay naftooda daahir yeelaan. tahaara xisiya iyo tahaara macnawiyaba. dad raba naftooda inay dunuubta ka maydhaan. waysaduna dembiga waa maydhaa iyo qubayska iyo kuwan sharcigu uu faray. cibaadaadka kale la samaynayana waa maydhaa. masaajiddaasi waxaa laynoo tilmaamaya salaad qura inaan ahayne xataa fadhigiisu inuu cibaadaye. masaajidka haddaad iska timaado fadhiisato waa cibaada. waa taqaanin cibaadat lictikaaf. inta badan inagu cibaadada waxunbay maskaxdeena ku xidhan tahay tobanka dambe ramadaan. oo markaad maqasho iyadoo ictikaaf laga hadlayo tobanka dambe ramadaan in la ictikaafaa baynu qaadanay. laakiin cala almadhabi shaafici saacad nusu saac 10 daqiiqa la ictikaafi karaa. markaad masaajidka soo gashaba haddaad niyeysato muctakif baa tahay. ilaahayna wuxuu leeyahy wacaahidnaa ilaa ibraahiima waismaaciila an tahira beytiya lilطaa'ifiina waalcaakifiina warukaci sujuud. sida ogeed fadhigiisu xataa haddaanad dad la hadal oo qur'aan akhrinin oo waxba kala samaynin inaad fadhido ayaa cibaado ah. waa meesha ilaahay ku tilmaamayo inuu isagu isu idaafeeyey masaajid allahi la leeyahy ama buyuut allahi lagu tilmaamay isagoo ilaahay dunidoo dhan leh aan cidina la sheegan karaynin. laakiin waxaa la sheegayaa kuwan maxaa loogu idaafeeyey waa weynida la weyneynayo masaajidda iyo sharfidda la sharfayo daraaddeed. ilaahayna wuxuu ku tilmaamay kuwa masaajidda in la camiro diida inay daalimiinta ugu waaweyn yihiin. waman adlamu miman manaca masaajid allahi yadkura fiiha smuh wasaca fii kharaabiha ulaa'ika ma kaana lahum an yadkhuluuha ilaa khaa'ifiin lahum fi dunya khizy walahum fi laakhirati cadaabun cadiim. meeshaas ciddii diidda in lagu ictikaafo ama laysugu yimaado ee dadka u diidda ee rabta inay masaajiddu kharaabto, ilahay wuxuu ku tilmaamaya inay dadka u dulmi badan yihiin. nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya xabu lbilaadi ila allahi masaajiduha. alle dhulka meeluhu u jeceliyey inay tahay masaajideeda. meelaha alle agtiisa loogu necab yahayna inay suuqyada tahay. waayo suuqa inta badan laqwi iyo khiyaano iyo kish iyo wax kala ka socda. laakiin masaajidka inta u badan leh
وعبادة يدك إنه إلهي كحرية هي أي كسعطة. أيها الأحبة، هل أنا مركز النادي كمسلم هو مساجد ومد هذا دركت مساجد ده أي مرنتهاي ومد سيجو أي سنفتك بحيسها ومد هذا دركت مساجد ده عمرنتهاي وشوجة وضد المدين كوب عيان أما دد شرين نقريا. ولذلك بقى مساجدكم رسالة روحية ولي وإن إله إلا حصه ولوينيه ودين تيسا لغو برطو وآخرة لغا حضو ولغا فكرو ولغو ديار قروبو وربي لغو حدناغو. رسالة دا ولي رسالة اجتماعية ولي واللغو تلقى بلشدو مالا اسكو برطو وكودا باهن يكودا نبهيستو يكودا مركا لوايا لغرتين وحانوسان يلا صوب وقانا ومال ددكو بلشة أهان لوغو تلقى اسكو برطان ساسانوها مساجدك النبي عليه الصلاة والسلام. رسالة تعليمية أولية ومال وحلقوا برطه ومسلمين علم كان إنماطا لأنه علم مادي علم ديني يمشريني علم ومساكس ثم الأولي يشري مرة دو علمي وهي علم وإما إلهي مخلوقات كيسي فعاشي سيينات برانسو إيه إلهي كلام كيسي وحي سيينات برانسو والله بضا مدو الله بضا أنا مساكس الأولي يشري وحرائمك مغاشان دوني دين لإله وكرسي هبل كرسي وكرسي مساجد اللي يشري علماء المسلمين تي وحكوا أخري شفتو كي. إذا رسالة اجتماعي قابوا النادي قاني لي ومساجدكم دانتا لغالي وحكامي إن dadka muslimiinta isugu yimaadaan oo ku kulmaan oo kooda baahan ku caawiyaan oo kooda buka lagu soo booqdo oo kooda isku buuqay loogu waramo oo ka dhibta cabanaya dhibta lala wadaago ama laga dhiciyo maadaama uu caynkaa yahay masaajidku waa meel naadi la rabo qofka muslimka inaanu marnaba ka maqnaanin